kulanti wacan daawadayaasheena ku taxan channelkeena xogta daahsoon. halkan waxaan idinkuugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka, dhacdooyinka la yaabka, xogaha daahsoon iyo sidoo kale warbixinada sirdoonka. maantana waxaan ku eegi doonaa waa kuwee 10 dal ee Afrika ugu awoodda badan dhanka militariga. warbixin guud ayaan ku eegi doonaa awoodda military, tan ciidan iyo sidoo kale hubabka kala duwan oo haystaan wadamadaas. si aad ugu noqoto daawadayaasheena, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto, sidoo kalena aad furato gambaleelka si marka wararkeena ay u soo saarno ay ku soo gaaraan. aynu ku bilaabnay awoodaha military ayaa laga maarmaan u ah dal kasta oo uu doonayo inuu ilaashado xuduudiisa iyo danihiisa guud. shabakada Global Firepower Network iyadoo u maraysa cilmi baaris ay sameysay waxay liis gareysay awoodaha wadamada dalalka Afrika iyadoo lagu saleynayo tirada ciidamada cirka, dhulka, dhaqaalaha loo qoondeeyay ciidamadan, qalabka military, kheyraadka dabiiciga, awoodda ciidamada badda iyo wixii la midka. haddaba waa kuwee 10 wadan ee ugu awoodda badan marka la eego militariga. kow waxaa ah wadanka Masar guud ahaan waa wadanka hogaamiya militariga qaaradda Afrika sabab la xiriirta tirada ciidankeeda. dalkan ayaa sidoo kale kaalinta 12aad ka jira marka loo eego awoodda militari ee caalamka. ciidanka Masar waxay leeyihiin ciidanka badda iyo ciidanka cirka iyo kuwa dhulka. ilaa 500 oo kun oo askari ayaa lagu qiyaasaa ciidamada Masar, waana tirada ugu badneed ee wadamada Afrika. marka laga soo tago ciidankeeda militari oo aad u tiro badan, Masar waxaa kaloo ay leedahay 10,000 oo gaadiid dagaal ah, 60,000 oo gawaari gaashaaman ah, 192 diyaaradood oo militari ah iyo ceelal badan oo saliid ah. si kastaba ha noqotee, waxaa jira hal shay oo ka dhigaya ciidanka Afrika ugu awood badan, waana ciidamada badda oo ku qalabeysan maraakiibta dagaalka ee nuclear-ka iyo maraakiibta quusta. ciidankana waxay xukunka hayeen tan iyo markii uu inqilaabka militari afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiyadda loo soo doortay Maxamed Mursi oo meesha uu ka saaray Al-Sisi. wadanka labaad waa Algeria. sida dalalka kale ee galbeedka Afrika, Algeria waxay ku guuleysatay inay howlgeliso ciidan awood badan oo ka dhisan dhulka, badda iyo cirkaba. guud ahaan marka loo eego awoodda militari adduunka, Algeria waxay soo galaysaa kaalinta 27aad. waxay leedahay ku dhawaad 130,000 oo askari iyo 2,000 oo ah gawaarida gaashaaman. dalkan weli si fiican uma xasilin kadib iscasilaadii madaxweynahoodii ugu muddada dheeraa, balse militariga ayaa helay sare u kac maadaama xasillooni darrada iyo kacdoonka shacabka ay sii socdaan. abaanduulaha ciidamada ayaana walaac ka muujiyay dib u dhaca doorashada ee loo soo jeediyay ee sababi karta qalalaasa ka dhaca dalka. wadanka saddexaad waa Koonfur Afrika. maadaama dalka aanu dagaal gelin muddo dheer, hadda Koonfur Afrika waxay ciidankooda adeegsadaan tiknoolajiyadda casriga si ay u ilaaliso nabadda iyo iskaashiga caalamiga. colaad la-aanta kuma hor istaagin in ciidankooda u qoondeyso 4.6 bilyan oo dollarka Mareykanka. diyaaradeeda iyo qalabkeeda badda waxay leeyihiin tiknoolajiyad casri ah, inkastoo ay leedahay 100,000 oo askari, haddana ay awood badan yihiin. intaas waxaa dheer inay leedahay tiknoolajiyad casri oo hawada iyo dhulka. militarigana waxay caan ku yihiin tayada sare. wadanka afraad waa Nigeria. wadanka galbeedka Afrika ayaa dagaal kula jira mintidiinta Boko Haram in ka badan 10 sanadood. inkastoo guul weyn laga gaaray muddaxileedkii ugu horeeyay madaxweyne Muhammadu Buhari, haddana ciidankan ayaa la kulmay dharbaaxo sanadkii lasoo dhaafay sababta waxaana loo tababaray la dagaalanka ciidan kale bedelkii la bari lahaa sida loola dagaalamo ciidamada isticmaala dagaalka ku dhufo ka dhaqaaqa ah. si la mid ah Algeria iyo Masar, ciidamada qalabka sida ee Nigeria waxay awood u leeyihiin inay dadaalka lagu tayanayo ciidamadooda sabab la xiriira kheyraadkooda saliidda. Nigeria waxay leedahay in ka badan 1,800 oo gawaari militari ah, 250 taangiyo, 6,000 oo kale oo gawaari gaashaaman ah. intaas waxaa dheer 300 oo diyaarado militari ah iyo 25 markab oo kuwa badda ah. si kastaba haatee, awoodda badmaaxayaasha ayaa mid aad u hooseysa marka loo eego dalalka kale ee Afrika ee la leh sohdinta badda. wadanka shanaad waa Ethiopia. waa dalka kaliya aan xuduud badeed lahayn oo ka mid ah 5 wadan ee ugu awoodda badan xagga awoodda militariga. dalkani wuxuu dhaqaalihiisa inta ugu badan ku bixiyaa tayeynta ciidankooda. shabakada Global Firepower ma u diidi karto dalkan aanu badda lahayn inuu sameysto ciidanka badda. ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa xiriir wanaagsan lahaa ciidankiisa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay, iyadoo la arkayay militariga oo booqanaya qaar ka mid ah mashaariicda wasiirka uuna sharaxayay aragtidiisa dalka.
dalkan ayaa dhowr sano hadda ku jira dagaal sokeeye. awoodda in la helo ciidan xasiloon ayaana lagu sheegay inay tahay khatarta ugu weyn ay tahay maleeshiyada al-shabaab. Itoobiya waxay leedahay 140,000 oo ciidan iyadoo 2 milyan oo qof sanad walba ay gaaraan da'da militariga. Wadanka lixaad waa Angola. ciidanka Angola wuxuu leeyahay 3 qaybood: ciidanka cirka, dhulka iyo badda. horaantii sanadkan ajandaha isbedelka ee madaxweyne Laurence waxaa qaatay militariga iyadoo shaqada laga eriyay 88 jeneraal militari ah. tallaabadan ayaa timid kadib markii taliyaha ciidamada uu shaqadiisa waayay markii xeraalyaha guud uu sheegay inuu ku socdo baaritaano la xiriira musuqmaasuq. dalkan oo leh ceelal shidaal way u fududahay inuu helo qarashaadka badan ee ku bixiyo ciidamada, waxaana Angola ay leedahay 100,000 oo ciidan, 585 oo gawaari militari ah, 300 oo taangi, 285 diyaaradood oo kuwa militariga iyo 57 markab oo kuwa dagaalka. wadanka toddobaad waa Morocco. horaantii sanadkan boqor Maxamed V waxaa dowladda uu ka codsaday inay askar ka qorto 10,000 oo reer Morocco oo ka mid noqonaya militariga muddo hal sano ah, waxaana la filayaa in tiradaas ay kordho ay gaarto 15,000 sanadkan 2021. ciidanka boqortooyadu wuxuu leeyahay 196,000 oo askari. waxaa kaloo ay Morocco leedahay 291 diyaaradood, 2,720 gawaarida gaashaaman ah, 1,109 taangi iyo 121 maraakiibta quusta. howlgelinta ciidamada galbeedka Saxara ayaa weli caqabada ugu weyn ee ilaa iyo maanta haysta. wadanka sideedaad waa Suudaan. militariga Suudaan waxa uu sare u kacay xilligii madaxweynihii hore Cumar Xasan al-Bashir, waxaana maalgelin uu ka helay Sacuudiga dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay markii xukunka ay la wareegeen militariga. ciidankani waxay gaarayaan 104,000 oo askari, 191 diyaaradeed oo militari, 410 taangi, 403 gaadiidka dagaalka iyo 18 markab oo quusa. wadanka sideedaad waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo waa dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin 86 milyan. qaramada midoobay weli ciidamo ayaa ka jooga dalka maxaa yeelay ciidamadooda ma awoodaan inay la tacaalaan howlaha nabad ilaalinta. dib u habeynta amniga dalka waxa uu soo bilowday 2003 kadib muddo dagaal sokeeye ay socdeen. dalkuna wuxuu leeyahay 134,000 oo ciidan, inkastoo ay tiradaas jirto haddana weli waxay ka hooseysaa dhanka tababarka marka loo eego ciidamada wadamada kale. wadanka tobanaad waa Liibiya. militariga si wanaagsan ayuu u qalabeysan yahay, dabcan lacagta ka timaada iibinta saliidda ayaana sabab u ah. wadanku wuxuu hadda u kala qaybsan yahay Tripoli iyo generaalka fallaagada ah General Haftar oo ay taageeraan wadamada reer galbeedka ee awoodda badan sida Mareykanka. iyadoo ay taasi jirto haddana dalka weli waxa uu haystaa 2,500 oo gaadiid dagaal ah, 500 oo taangi, 600 oo hub ah iyo 6,500 oo gaadiidka dagaalka. dhanka kale Global Far ayaa ku qiimeysay Kenya kaalinta 12aad, Uganda kaalinta 14aad, halka Tanzania ay kaalinta 23aad ka gashay Afrika. hagaag daawadayaal, guud ahaanna waa nageynta warbixintii ku aadneed awoodda militariga Afrika. warbixinadan iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan. fadlan haddii aad inagu cusub tahay subscribe inoo saar. nabadgelyo.